تهاي ومدو أي تعلن تهاي دقنان هشيو دكسيو نبض بيربتا ومدو أي تعلن تهاي ومدو أي تعلن تهاي دفاع قرب بيربتا توني دا بيربتا دستور لغو كلا صحبيو ديمقراطية بيربتا يا كلا دوي دمان ددوينها ركي هوين بلا دلنيرو odayaal عقال سرادين دمانتي waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan ergooyinka iyo waxgaradka ka soo qayb galay shirkan shirguule aad baan ugu mahadnaqayaa isumaantankooda iyo sida ay ugu soo diyaargaroobeen in shirka maanta oo khamiis ah bishuna 28 uu ka furmo degmada Xingalool aad baan u soo dhaweynayaa dhammaan waxgaradka ka soo qayb galay waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan qurba joogta ama dadka dibadda jooga oo xil weyn iska saaray shirkan isaga ah martigelintiisa qabanqaabadiisa iyo iyagoo maskaxdooda gaar ahaan dadka dibadda jooga oo deegaanka ah iyagoo maal iyo muruqba geliyey inay shirkan hirgeliyaan maskax ahaan iyo maalgelshi ahaanba iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa xubnaha ka joogana waan ku soo dhaweynayaa shirka aad bayna u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha reer Xingalool ee degmada Xingalool ku nool rag iyo haween dhalinyaro odayaal duqay sida ay soo martigeliyeen ama ay soo dhaweeyeen shirkan isaga ah ilaa maalintii shirkaasi bilaabmay ama qabanqaabadiisu bilaabantay dadweynaha reer Xingalool reer Galbeed ahaayeen maantana waxay soo gaarsiiyeen halkan in maanta joogno furitaankiisii iyagana dhammaantood waan u mahadnaqayaa waana ku soo dhaweynayaa shirka haddii aan in yar ka taabto iyadoo dadweynuhu ay fadhiyaan qaarkood meel qoraxa aanan khudbad badan jeedinayn waxaan yara taataabanayaa shirweynahani sida uu soo bilaabmay iyo qabanqaabadiisu siday ahayd iyo waktiguu soo bilaabmay wakti dheer buu ahaa muddo badan baa shirkan turxaan bixintiisa iyo hawshiisa lagu jiray waxaan u malaynayaa muddo aan ka yarayn 6 bilood buu soconayay waxaa jirtay waqtiyo dib u dhacay oo duruufo keeneen sida rabadaantii oo kale shirkaas ilaa waqtiga waxaa lagu jiray turxaan bixintiisa iyo sidii uu hirgeli lahaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta wanagan isu nimi ku soo dhammaanay oo aynu isugu nimi degmada Xingalool iyadana aad baan uga xamdinaqayaa dhicidda uu maanta ama furitaanka uu furmay shirka muddada soconayay run ahaantiina waxaan u malaynayaa shirkii ugu dambeeyey la qabto waqti badan baa ka dambeeyey in dadkani isu yimaadaan oo danahooda ka tashadaan waa lagama maarmaan in la isu yimaado iyo duruufta waqtiga aynu ku jirno maanta Soomaaliya waa duruuf adag waxay lagama maarmaan tahay in la isero la wada tashado dadkani danahooda iyo arrimahooda ee ka tashadaan inta maanta ka soo qayb gashay waxa weeye intii maanta ka talin lahayd aayaha iyo danta guud ee mandaqada run ahaantii xajandaha oo kale waxaan u malaynayaa inaan wax madmadooba ku jirin ama waxa gobolada ah qof kasta uu dareen ka muujiyaa aanay jirin shirkana waa shir dhaqan waa shir ay dadtooda iyo aayahooda ay kaga sashan doonaan ummadda deegaanka ku nool waxa weeye dadkuna meel kama soo wada dhamaadaan kii tala la maqan iyo kii joogaaba dan bay u tahay ra'yigiisana waa ka dhiiban karaa waxaan qabaa maanta inaan madmadow kaga jirin qof kastoo deegaanka ajandaha shirka ama waxa la isugu yimi inuu yahay danta u taala deegaanka dadka in aayahooda iyo dadkooda ka tashadaan iyo maslaxadda dadtooda inay tahay waxaan u maleynayaa ajandihii in halkaa laydinku muujiyey wax siyaasada oo shirkan istiqaal ku leeyahay ma jirto waxa weeye shir dhaqan shir siyaasaddu waqti bay leedahay waqtigeeda iyo taladeeda baa laga sugayaa wixii dan ah
oo shirka maslaxadu waa dadka baa halkan lagu dhammaynayaa nina yuu shaki gelin ama ka warwarin maxaa la lahaa maxaa lagu soo qaadayaa maxaa beenawi cid gaara wata muqolada murbajoogta jeefka ku sidata baalka xan badan baa jirtay waxa la aaday cid jeefka ku sidata wax gaara ma jirto nin kasta oo ka mida deegaanka maanta wuxuu ka akhrisanayaa injandii halkaa marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhallinyarada saxaafadda ragga shirka hogaaminaya siyaabaha usoo fududeeyaan iyo siday uga soo qayb qaateen iyo siday u muujiyeen maanta waxaa laga yaabaa in la ohan jiray jadaal berito kale baa la samaynayaa waxaa halkaa maanta loogu soo dhejiyey oo loo kashifay inaan cidna madmadow ka gelin waxaana lagaga tashanayaa waa danta dalka iyo dadka waxaana dadka u talinayaa cuqaasha salaadiinta waxgaradka dhallinyarada haweenka bulshada deegaanka oo dhan baa taladaa wadaaga waxaan ku soo dhaweynayaa cid gaara oo far loogu fiiqaya inay iyagu u talinayaan ma jirto waxaana ku kalsoonaya oo ku soo dhaweynayaa waxgaradka dhammaan jooga iyo kan maqanba inuu fakarkiisa iyo taladiisa ka dhiibto waxa weeye hadda wakti casriyaa la gaadhay waxaa la gaadhay wakti telefoon lagu wada hadlo oo qofku fakarkiisa ku dhiiban karo kaa maqni internet baa jira waxyaabo badan oo horumaraa jira waxaan qabaa ninkii inaga maqana inuu inagu soo geliyo wixii fikrada oo dana hadduu shaki ka qabana maanta in shakiga ka baxo waxaan aad u soo dhaweynayaa danta guud iyo maslaxadda inaan lagu qaldin waxa dhabta ah waayo duruufaha jira oo deegaanka ka jira maanta nabadgelyo baynu haysanaa barwaaq baynu haysanaa horumar baynu haysanaa in la ilaaliyo la dhowro oo aan lagu si dheeleela aanay gacanta nooga bixin waa ogtihiin duruufaha dalka soomaaliya ka jira duruuf adag baa dhulka qaarkeed ka jirta waxaan u malaynayaa ilaa waktigii burburkii 90 laga bilaabo inagu marxaladaynu ku jirnay malwaxad nabadgelyo bay ahayd nabadgelyadaan halkaa waxaa soo gaarsiiyey dadweynaha deegaanka iyo odayaasha iyo waxgaradka waa in looga dambeeyaa dadka waxgaradka had iyo jeer wixii nabadgelyada iyo maslaxadda danta ah layskuna ixtiraamaa maantana halkaa waxaa soo gaarsiiyey iyaga run ahaantii maanta meeshaan joogno wax badan oo inaga dhiban oo aan qabaa inay dalka iyo dadka ka dhiman tahay mar haddii nabadgelyo la haysto sidaa laysku gacan qaadayo laysku dhex joogo inaan wax inaga dhimani jirin marka waxaan aad u adkaynayaa oo ku dhiirigelinayaa dadka deegaanka inay nabadgelyada halkii ay ka joogtay awalba uga qayb qaateen hadday darisyada tahay hadday dadka la nool yihiin inay sidii awalba ay u jirtay loo ilaaliyo lana sii xojiyo waxaan farayaa ugu baaqayaa dadweynaha madaqada ee deegaanka ee shirka ka soo qayb galay in darafyada iyo nabadgelyada dadka aynu xuduudaha leenahay aynu sidii aynu ula noolaan jirnay oo nabadgelyo ah loo sii adkeeyo loona mideeyo waana beeska ugu weyn nabadgelyadu nolosha haddii aan nabadgelyo jirina nolol ma jirto horumarka kale oo iska gaadhaynaa waxaana badanaa ku canaannaa oo aynu dhahnaa burbajoogteena horumarka xagga aragtidooda aqoontaba inoogu filan lahayd baynu ku xaqnaa iyagana mar hadday maanta yimaadeen oo shirweynihii nagala soo qayb galeen waxaan u malaynayaa inay wax badan iyaguna soo kordhin doonaan marka waxaan aad ugu soo dhaweynayaa shirka dadkan ka soo qayb galay uguna boorinayaa in xil weyn layska saaro nolosha deegaanka iyo difaaciisa iyo adkayntiisa iyo kamadhidhilintiisa loo tashado meel looga soo horjeedo midnimada deegaanka iyo dadkuna waa muqandis haddaan midnimo jirin oo la iskaashan waxba lama qaban karo qofku keligiina waxa ma qaban karo waxaan aad u soo dhaweynayaa midnimada iyo turxaan bixinta wax badan oo dadka ku kala dhex jira ma jiraan waxaa laga yaabaa aragti iyo fakar inay waxaynu u badan tahay xabad iyo dil iyo dhac midna inaba dhex yaalo marka walaalayaal waxaan ku codsanayaa wixii dadka beelaha laftigooda midnimada ku kala jiraan waxaa loo samaynayaa gudbin turxaan bixineed oo shirka ka soo bixi doonta oo soo dhaweyn doonta gacan marinta wixii dhib oo jira iyadana in si kalsooniya loogu kalsoonaado baan aad u soo dhaweynayaa waxaan u malanayaa dabayl iyo qorax baa dadku fadhiyaan anigoo hadalkaygu kusoo gabagabeynayaa madasha shirka aynu joogna maanta xingalow aad baan ugu mahadnaqayaa ciddii soo qabanqaabisay intii ka soo shaqaysay intii gelisay xoog gelisay iyo maskaxda iyo dadweynaha xingalool oo mudan mahadnaq iga soo dhaweyn iyaguna aad bay u mahadsan yihiin siday shirka u soo dhaweeyeen iyo qabanqaabada hawsha ay ka galeen mahadnaq ballaaran baan usoo jeedinayaa markaa ku dheeraan maayo agshandee la isku xamanaya maanta oo laleeyahay shaki baa shaki ku jira ma jiro in badan baa shaki la muujinayay kii shaki muujinayow saaxiibka telefoon diro uga akri halkaa
ama internetka u geli oo waxaad tiraahdaa war shirkii guuleed wuxuu noqday shir daneed. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi ummadu way taalan tahay ummadu way taalan tahay inay deganaan heshiyo dugsiyo nabad bay rabtaa ummadu way taalan tahay ummadu